أنا كسعودو كندا maanta waxaa farxad iyo inaan ka qayb galo ciyaalahan oo qabanqaabinayaan nimankan odayaasha oo dacar iyo maanta ugu horeeyaan marka wax weyn ay ii tahay inaan mar imaado meeshaan anuu marka horeeyay imaado ah inaan ka qayb galo ayagoo haddana aan la kulmin ciyaaro Soomaaliyeed la dhigaayo waa wax mustaqbal fiican waa arrin fiican waa arrinta ay Soomaalidu dhan meesha ay ka wada hagaagsantahay isugu imaanaysa insha Allah waa ciyaaraha siba kubadda cagta marka waxaan leeyahay meeshiina ka sii wada khayr Allah idin la wada kulan siiyo ummadoo dhan General Daoud Tournament oo aan sanadkii saddexaad ku qabanayna magaalada London waxaan u mahad celinaynaa dhammaan kooxihii iyo marti sharaftii nagala soo qayb galay si barnaamijkeena aan u guda galno waxaan marka hore rabaa inaan ku soo dhaweeyo macallin Xasan Faarax si aayadaha Quraanka Kariimka oo nuga furo waana maasantiin Bismillahir Rahmanir Rahim wal 'asr إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ومسوا استاجين إن رنتي كمنا تلاقي إن واحد بدن يراهضه لكن هديتك مسلم كيسوي مادان ويميلكو كل مان وحواجبكو إن إسفران حقا مركا وحا رنتي نقوني واحد خلدان إن إنتان سني مادنو أينان إسحسوسين عبسيد إلهي مركان نفتي إذا يذيك وحن أنكو إذا الحسوسين يا دد يوم إن إلهي لقى عبصدو بني آذن كسيدا يعني أوكتين وقفنا هل كان أنا كبدين وحوي أدونكن ولا مع الموت ومرين لمرة يو قابن مركا وحن نفتي إذا يذيك من فريا إن وقاتان عبسيد إلهي حق دتكو إلهي ذكوله هي حق دتكو ذكوله هي حق نفتي ذكوله إن وقاتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت برنامج كجودة جلين وحن هالكان وجم هاد علينا تيمك نوجا إمادة دلك السويدن سنة كسدحات جهدي السوق جليو سي وقف جلان ترتن كجنرال داود تورنمنت كاب سيدو كله وحن هاد علينا دليرة كي إماتي نورث إيرلاند مقالة بلفاستي يكوحي كإمادة قبلة دلك UK iyo kooxihii xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada London dhamaantiin waa maasantihiin markaan waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha South London Adeer Abuukar Cali Jimcaale si barnaamijka uu noogu furo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ولا ليال دمان أنت كسو قيب الشيء ترتن كان سنة الله جنرال داود عبد الله حرسي وان إدين مهد علنينا وسنة كي سدحات وعن كو قبلينو كوفرت لندن وحان إذن الله هاي دمان مرت الشرف تهكا لغا حسي oo ka kala timid gobolada iyo waddanka banaankiisa inta waxaan leeyahay soo dhawaada waana ku maasantihiin ka soo qaybgalka sanadkan waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda inay sida noo ahaato insha Allah taala waa maasantihiin koobka General Daoud sanadkan waxaa kaalin lixaad la ka qaatay bahda isboortiga South London aanan u kala herin waxaan rabnaa si qaas inaan ugu mahad celino Abalisha oo ah aabbaha isboortiga xaafadda South London sidoo kale guddiga qabanqaabada koobka waxaa gudoomiye u ahaa gudoomiyaha qabanqaabada koobka General Daoud mudane qoor cadde oo ah wada taqaanaan qaybta farsamada waxaan noo qaabilsanaay macallin Faysal timcada ama ugaaska saa u taqaaniin hoolkan quruxda badan leh ilaahay ka sokow waxaa taabageliyay walaasheen Maryan Cadow oo qarashaadka hoolka ayadoo ay garab istaagtay gudoomiyaha haweenka jaaliyadda UK Qaalile Beerlula aad ay ugu mahadsan yihiin
si barnaamijkeenna aan u guda galno markaan waxaan rabaa inaan ku soo dhoweeyo maxamed cali digeeye oo ah aabba sportis. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنيالي مروين مرتشرف تعاو هالكان اسكو تيمد وعن بوغادين إيه مهد علين وجيدين إنا قدقي سوق بنقابية عياران شرفت له إيه متقانا كوب كان شرف وين لونه سيجارة كوب كان وحو شرف وين ولا هي سيجارة كوحدة جينيو سببتنا وحيتاي سببتنا سويدية وكوحدة كلية صوماليا كنسنت سدح مرة دبجوك قاضي سيدي كوب الريمت كل لقينا كجير وول كاب كل كله مركا أنجا سيجارة waxay maanta caawa annaga inu qusaysaa aniga adeerkay axmed nuur saygan ruushka adeerkay abubakar cali jimcaale iyo ninkii kollejka ii geen jiray iga soo wadi jiray buuran oo isqarinaayo marka inaad la socotaan waay waxaa jooga kooxda jenya markaan ka hadlayo waa la badan yahay meesha waxaa kaloo jooga nin la yidhaha faaqid raggii soo baday axmed bile kooxdii dadka kale soo baxay waay laakiin waxaan idiin sheegaa kooxda jenyo waxay kooxda sharaf ku lahayd halkan waxaan u soo jeedinayaa mataqaanaa mahad celin dadkii ka soo qayb galay gaar ahaan kooxaha bannaanka ka yimid sida Belfast oo kale Sweden oo kale maxaa la yidhaahaa Ishak maxaa la yidhahaa Bristol oo kale waxaanu leenahay waa mahadsantiin weligiinana waxaa tiin dadka meeshan horseed waa isboortiga si gaara waxaan u soo jeedinayaa markaan dhammaanba inta isboortiga jecel in loo gurmadaa mar walbana la gaashaankana loo qaadaa wax alla wixii ka hor imaanayo isboortiga sidii loo hormarin lahaa dhalinyaradan Soomaaliyeed ee doonayaan inay mustaqbal ka dhigtaan isboortiga marka waxaan yeelaynaa gacmaha aan isqabsanno sida kaliya aan ku gaari karnana waxay tahay gacmaha haddaan isqabsanno basket ha noqoto volley ha noqoto football ha noqoto meel weyn baan ka gaaraynaa wabillahi tawfiiq wa mahadsantihiin isboortiska Soomaaliyeedna hataa bagalo qulucdan ha ka bixee hamidoobo adikana noolaada walaalayaal waxa sharaf noo ah annagoo ajaaliyada Soomaaliyeed ee UK inaan caawa xafladan qiimaha badan aan ka soo qayb galno kuna dhiirigelino isboortiska Soomaaliyeed oo ah laf dhabarka dalka iyo dadkaba ah waxaan rabnaa inaan ka mahad celino mas'uuliyiinta baarowgan oo ka mid yahay gudoomiyaha Cabdullaahi Carab oo ka mid yahay gudoomiyaha Dacar oo ka mid yahay maxay ahayd mahad yare ay ka mid tahay gabadha haliyeyga ah oo Allah ila had iyo jeer u taagan isboortiska Soomaaliyeed inay mag iyo xoolo iyo xoog isugu geyso Maryam Maxamed Cadow ayaan u mahad celinayaa walaalayaal waad ogtiin gabdhaha Soomaaliyeed waa laf dhabarka dalka waaye gabdhaha Soomaaliyeed la'aantooduna waxa waaye guri aan lahayn waaye sidaa darteed Maryam Maxamed Cadow way mudan tahay loo sacbiyo walaalayaal Maryam ha loo sacbiyo waxaan u sii mahad celinayaa oo leeyahay taabagala oo Allah ay barakeeyo isboortiski maanta isboortiska labadii jeerbo laba qol haday ciyaarto qolo ayaa raayleed qof laga guuleysto male way wada guuleysteen laakiin hambal yaa leeyahay isboortiskana ha isgarab galo ha islees gacmo qabsado midnimadan ha lagu dadaalo wabillahi tawfiiq laakiin waxaan rabaa halkaan si qaasan aan uga mahad celiyo gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed ee wadankan UK Cabdalla Maxamed Aadan walaalayaal waa hoggaan culus waa hoggaan nabadeed waa hoggaan dalka iyo diinta iyo dalka u shaqeeya fadlan waxaan iiga codsanaa inaad la shaqeysaan sababtoo ah qofka Soomaaliga creditkiisa waa la siiyaa markuu soo istaagane holka hagilgilmo waa muwaadin Soomaaliyeed ahlan wa sahlan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anoo warkayga intaas ku dheeraanayn dhammaan dadka ka soo qayb galay Northka Westiga Southka dhamaantiina waa ku mahadsantihiin sida aad u taageeraysiin isboortiga waxa waaye waa sabar isboortiga waa aragteen 22 qof ama 10 qof oo basketball hal nin dhex taagan ninkaas amarkiisa la qaadanaya ninkuu roo guduud siina ninkuu roo casaan siina ninkuu roo jaalo siina wuxuu roo siina laakiin waa sabar hal isku sabro waxaan u mahad celinayaa dadkii guuleystay oo koobkan maanta qaaday waa kaalinta koowaad waa ku mahadsantihiin kaalinta labaad nimanka galayna waa ku faraxsanahay inaad gashaan Wembley waa ka xumahay koob badan haysataan koobkan hore u qaadeen sabra wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aadaan walaalkay xabisyada ciyaaraha ciyaalka ku jira ay u yaraadaan in la badiyo arrimaha sportska oo la qabanayo oo lagu daro orodada lagu daro waa mahadsantihiin inaad igula soo dhaweysiin martida culus
ee nooga imaatay dalka Canada gaar ahaan magaalada Toronto cayaaryahankii weynaa ee naadiga Fiat iyo xulka qaranka Soomaaliya Daahir Xasan Xuseen oo ku magac dheer Marshaale. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قهرت مرشال أهان وما دلنا ميل استاج أو كقطبة ومرك أهريس أو مالينا ميل سبورتي إن استاج كقطبة سببته ترونو وحن كأهل لجند لكن وحن كأهل نين كقيب قال يارها يريركا المها يريركا تاس أو هم مالينا إن كجهرين معلنا كأهمشاس كوح يرير ونمك عيارتو إذا هاجر أي وضع سميان وحكي سميان مرك ما دام أكو حيسيد ترونو waxay ugu daraan dadka meeshaas fadhiisanay dib male waxban uga maqaba laakiin cawada waa idin ka maseer waxaan idin kaga maseeray koobkan General Daawud buubo nigaas waa maadsan yahay waan ogyahay sababta uga maseeray waxaan dhignaa annaka Somali Week iyo Ramadan laakiin markay maqlaan waxaan maleynaa in idin ka maseeri doonaan ayagana ay dhigi doonaan koob General Daawud koob la system ah aniga weligay kuma badin laakiin waa la iga badin jiray nin la system ah ninkan John ninkii oo ka sheekeeyay waa wax weyn oo qiimo leh waay mana arag hadda ka hor sporti ka sheekeynay taariikhdiisa ninkan aniga xitaa macallin oo yahay John waxay maanta wuxuu i tusay inuu macallin si dhalayahay ma sha Allah ilaahay garabkiisa ka xitaa quraanka nimankii sportiga marmar waa ku liidanay laakiin hadda wuxuu i tusay xitaa inuu quraankii iyo nabigii salawaatullaahi wa salaamu alayhi inuu naxasuusi وحوين أو لما قاعد كروا وانو كفر حسنة معنا قرار الله ونحرسته أنا واشنطن تجي أنا أركي أسوقه حديثي وحكي شيء كيناي أما هبي مركا أركو نن سبورتي هذا القرآن كقدر كل جن الله إنه وظافجي always سبورتي وحوها ماشي كلية كده هن أما كبحسن قبيلك مركا أو ما سنتين سودوين ده سودويسين وأنا كفر حي وحنا لقيها بين أصول نقض مقالة إن شاء الله دي لا يراد خير الله ينسيه إن شاء الله مشينا نورك سوالنا مقصو أبابولنا وما تسيهين قلبتنا واتقي تاسيا إذن كهي المامن أو عياري وافير صدي وأوبقي إن من كان تيم كوب كوبدي تيم كلا إلا ديلاي نورت كأها عيال كأن أنا هاي أيا كجري on aad ugu bago xitaa dad aan weydiiyay historygooda oo la sheegay khayr Allah siiyo sportigan ilaahay ha garab galo nimanka yar yar kaane halala dadaal insha Allah wassalaamu alaykum markaan waxa mikrofoonka ku soo dhaweynaa madaalaha sportiga ee mar walba u taagan oday sportis Axmed Nuur Maxamed Xaashi Cilmi sayga ruush بسم الله الرحمن الرحيم horta ugu horreyn waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo dhalinyaradii maanta ciyaarta quruxsan la soo baxday oo maxaan ilaa ku guuleystay koobkan ee Bristol New Cross hambaliyan le talabaad waxaan rabaa sidoo kaleeto inaan ayagana u mahad celiyo raggii xafladan aadka u quruxda badan maxaan ilaa soo qaban qaabiyay oo aan qabo mar walbeeto dad ku mashquulsan sportska horumarkiisa ama dadaalkiisa wadu aabbo uu yahay Abuukar Cali Jumcaale iyo Dacar iyo Mahad iyo gabadheena hadda maxaan ilaha ayadana Maryan oo mar walbeeto maxaan ilaha u hagar baxda waxaan leeyahay ayagana maxaan ilaha Ilaahay ha idin garab galo ta kale waxaan rabaa inaan wax yar meesha ku daro sportska badbaado wuxuu u yahay ubadku u yahay tala rabaa waxay tahay yani sportska sanadlaha ama wiigi mar la ciyaara wax natiijo wanaagsan uu keeni karaa ma jirto sportska waxaan qabaa aniga bishii ama labadii biloodba in marba meel laga dhigo xaafadaha laga dhigo in gobolada laga dhigo in waxaasoo dhan laga dhigo badbaado waxay u noqonaysaa ubadkay u noqonaysaa laakiin haddii sanadle mar walba ciyaar mid la dhiga ay noqoto yani wax horumar iyo wax kordhinaysa ma jirka markaas ciyaarta la ciyaaro unba maxaan ilaha caawa lagu kala tego unbay noqonaysaa marka anigu waxay ra'yigan ay ila muuqataa in arrintaas hadda gudoomiyaha jaaliyadda iyo gabadha marwada maxaan ilaha ayadana qaali labadaba waa ka wada hadalay sportska inaan hadda iyo wixii ka dambeeyo xiriir inaan ka yeelano sidii loo horumarin lahaa ayagana ay garab ay u ahaan lahaayeen ta kale bahdan oo basketka
أنا عبد القادر قرويني هذا لأنه ماشي محل لا أكل كل يعني ما تعاون ما يسكفيرنا لكن وجهي هذا مركان قلت the legend وها سوماليا حليدي أيجها أيضا وحليها عاوة ما شد ونوي وكماتين sidoo kaleeto marshaale oo asagana ciyaartooydii maxaan dhihi lahaa horay u ciyaari jiro aniga waa ka yaraa yiri okay uu iga yaraa asagana waxaan leeyahay soo dhawow waan leeyahay ku soo dhawow halkan marka muhiimadda aan rabo inaan hadalka ku soo koobo waxay tahay waxaa la rabaa xaafad walba ama meel walba inay saddexdii biloodba inay isu xilqaanto sidii ciyaaro loogu qaban lahaa carruurtan maanta waddanka joogto hadda wuxuu ka hadlay walaalkeen wuxuu ka hadlay dhalinyarada xabsiga ku xiran dhalinyarada xabsiga ku xiran waxa asbaabtooda keenaa waxay noqotay haddii dhalinyaradan barnaamij ama sports ama waxyaabo mid loo suubiyo ay noqoto mid ay uga badbaadayaan inay tahay maxaan dhihi lahaa xabsiga marka dadaalkaas waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis in lagu dadaalo midda labaadna reer London ama Yurub dadka jooga guud ahaan yani waxaan u rajaynayaa inay midnimo sportska laakiin nin gaar ahaan ama xil burburin way iska jirtaa oo wax la iska burburiyo yani hinaas ah laakiin hinaaskaas waxaa la rabaa in lagu bedelo dadaal in lagu bedelaa ilaahay idinkiisa aan rajaynaynaa waadna mahadsantihiin waan ku dheeraaday waxaan leeyahay kooxdii guulaysatayna hambalyaan leeyahay iyagana sidoo kaleeto waa u hambalyanayaa qabanqaabada sportska raggaan suubiyo sanad walbana suubiyo oo maxaan dhihi lahaa dhalinyaradan oo joogtay Streatham ayagana sidoo kaleeto waxaan leeyahay dadaalka inaad ku sii dartaan waadna mahadsantihiin sidoo kale cawada waxaa marti noo ah gudoomiyaha jaaliyadda banaadiriga xaji male waxaa u maleynaa inuu istaagi doono xasan muriidi ku soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii waxaan jeclahay caawa aadaan ugu faraxsannahay anigoo ah gudoomiyaha baraarujinta bahweynta banaadir waa sida dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan aqoon weyn ii lahayn laakiinse waa fiican yahay in la isbarto horta marka nooradka dadka oo xooga ku leh ummadda UK degan oo dhan dhalinyaradooda gudoomiyaha ee halyeyga u ah ee hogaamiya ee gacan qabta ee meelaha dhibaatooyinka ka jiraan la socda waa aniga xasan muriidi aad ii jeedaan haysdheena canug yar waa nin weyn baan ahay tan kale aadaan ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galo xafladdan aadka u qiimaha badan oo rag culusna aan u jeedo sida cabduqaadir oo ka mid ah isku xaafadaan wada degnaan jirnay xamar jajab macallinkeygana wuxuu ahaa xisaab ibari jiray saynis warfaa uu ahaan jiray basketku ku fiican yahay rag culculus baa jooga meeshaan war waxaan leeyahay yuusan ku ekaanin intaane Soomaali meel kastay degan tahay hala isgarab qabto banaadirna si gooniya idiin fiirinaysaa aabe magacii banaadir raggii ku dheeli jiray ma joogaan ha isqarinina soo baxa maasha Allah aada u mahadsantiin markii aadan ugu faraxsanahay inay North qolada New Cross caawa ay ka guulaysatay koobka North London anuu North London ka mid ahay إن شاء الله وصلنا وحالة ترتميسان ضد عد معلنا بنادريا ورجع انتين ويماذا دي دونتان إن شاء الله أنا عبد الله إن شاء الله وأنا كود ذلك دونا دولا يكرنوا تنكرنا رنتي سيجا روشكا وانين رجع لو ذي يقانو وأن تي في ذا كذا وضوه رنتي أن ديه كرو نيك الصومالي أتاجن قيبت عيارها وانين كان وإناد أوجاتان وأرجعان سيسان ما يهو ومدى الصومالي وحلو بها مل الله ماشي جوكتو inay isgarab qabato oo ay sida odagii hadda ka hadlayo kale xabsiyada ilmaha ku dhamaanaya waxaa keenaya ina annagii aan dayacnay markii waalidiin baan nahay ilmaan leenahay waxaa loo baahan yahay ilmihii in la garab qabto sida waxaan noo fadhiya walaalkay maxamed cali noo fadhiyo kale rag culculus baa jooga inaad fiirisaan oo aad intee wax laga bilaabaa inaad tiraahdaan oo aad isu keentaan ummadii dhalinyartii aad garab qabataan oo meel aad u furtaan oo aad funaaniyaal iyo aad dhiirigelisaan magacii Soomaali weyn ay ku dheelaan xataa waxay ku dheeli karaan General Daawud aad soo xasuusan doontaan niman culculus nin baa ka dhintay meeshaan ka maqan oo anaga aan saaxiib ahaan jirnay talyaaniga markaan wax ka baran jiray ila joogi jiray isoo maray mala soo xusurtay isoo maray Allah u naxariiso mala soo xuray xusay cid ka hadashay isoo maray ma jiro meel alla meesha TV ka saan fiirsado isoo maray markii ciyaaraha uu jiri jiray asaga number 2 ka ahaan jiray marka soo xasuusta ragii tagay iyo ragga hadda joogaba wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantihiin markaan waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo gudoomiyihii farsamada koobka General Daawud
si arrimihii koobka iyo qaabkay u dhaceen oo nooga warramo master abalisha ku soo dhawow. habeen wanaagsan dhammaan baxda isboortiga ciyaartooydii birisamaadka basketball football dhammaan haweenka quruxda badan aad iyo aad baan idin salaamayaa kooxihii ka soo qayb galeen tartanka koobkii jenaraal daa'uud kooxdii ku guulaysatay new cross hambalyo kooxdii kaalintii labaad ay gashana hambalyo ayaan leeyahay maanta taariikhda jenaraal daa'uud halkan kuma soo koobi karno waxaa ka hadlay ciyaartooydiga waaweynaa iyo dadkii taariikhdiisii sheegeen aniga waxaa nasiib u yeeshtay 8 sano inaan ciyaaray koobkan jenaraal daa'uud magaalada muqdisho kooxda otobaarka iyo naadiga madbacadda waxaa xaafadayda maro dariiqi weynaa jenaraal daa'uud maro xaafadii boondheere dugsiga jenaraal daa'uud waa dugsiga sare aan ka baxay marka waxaan leeyahay familia reer jenaraal daa'uud hambalyo taariikhda jenaraal daa'uud halkan kuma soo koobi kara 3 sano ayaan maanta ayay sano guuradiisa noqotay waxaan xil isku saaray mahad dacar iyo abuukar cali jimcaale waxaan kaloo nasiib u yeeshtay maanta anigoo jenaraal daa'uud soomaali kusoo ceer wiil awow u ahay diidi maxamed cabdiweli aan garoon isla galnay galabta aabbihiis garoonka baa isla galnay koobka jenaraal daa'uud abtigii zakariya koobka jenaraal daa'uud ayaan isla galnay anoo garabkayga taagan xaaji malaay oo naadiga gobolka banaadir oo ciyaarayo iyo macallin faysal marka hambalyo walaalkay kabtanka kooxda banaadirna waa kan marka waxaan leeyahay habeen wanaagsan dhammaantiinba abalisha aad u mahadsan yahay markaan waxaan rabaa inaad ila soo dhawaysiin tababaraha xulka qaranka xaafadda Streatham maxamuud maxamed sheekh oo ku magac dheer xaaji malaay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وسلامتين عيرتويدي هوري لجندي هوري باسكتكا كوبدا عتا دمانتين وسلامتين مركا هوري وعن كلو مركا لباتن سلامة هواينك قرحة بدن أو مشان كسوق يبقلي إيو وعن كلو سلامة عيرتويدي ما أنت كوبكا قادين كواد إيو كوبا لبات إيو كل أنت كسوق يبقى مع كوبكا جنرال داود marka aad iyo aad ay u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullah martidii nooga imaatay dalka Sweden ee sanadkii saddexaad u imaado inay ka qayb galaan koobkan qiimaha leh waxaana magacooda ku hadli doono lajan aan ku faanna haddaan nahay bahweynta reer Madiino Xuseen Axmed Macallin oo ku magac dheer Xuseen Gurey markaan dada jiray shaliyo toban markaan damac la soo kacay markaan dada jiray shaliyo toban markaan damac la soo kacay dokhayga markaan saantay markaan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مرتي شرفتا للجندي هراء كوبادا عكتا من باسكتكا قبان قابياشا حفلتان قروحدا بدن كسو قيب قلياشا بلايرسكي مانتا كسو قيب قلي كوبكي جنرال داود دمانتي وحايد الله يهي وإن لقسي وضع ميشان إيميل كسي سلسي قارسيا إن شاء الله سبورتسكا waxaan mahad gaar u soo jeedinaa dadkii isku taxalluujiyey inay soo qaban qaabiyaan koobkan jenaraal daa'uud maatagow iyo dacar iyo tiimamkii la shaqeeya dhammaantood waxaan leeyahay aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin annagana waxaan rajaynaynaa meeshaan imaal kasii salaysanaa inayna sii gaarin haddii ilaa yidhaaho anigoo hadalkan kusii dheeraanay runtii khudbadan laygaga fiican yahay yaa waxaan ku soo gabagabaynayaa hadalkayga سبورتسكا وحاول رجينا هرمر بوحينو قاري إن شاء الله وأن لو كل هرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
dhallinyarada Soomaaliyeed waxaa ku jiro dhalinyaro badan dadaasho jecel isboortiga iyo isku xirka dhalinyarada markaan waxaan rabaa inay ila soo dhaweysiin nin dhalinyaro ah active ah dhalinyaradana waqti geliyo Hanad Cabdullaahi Hanad Yare oo nooga imaaday magaalada Bristol السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا والسلام دمانتينا waxaan salaanta ka bilaabayaa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada UK waa salaamanta gudoomiye waa salaamantahay maxaa halkan ka leeyahay ma aragtay sidaan quruxda badan ma aragtay koobkan noo soo qabtay waan ii mahad celinayaa haddaad tihiin dadkii magaalada reer Streatham maxaa u mahad celinayaa wiilasha walaalihii ah oo New Cross macalin deeq waa mahadsan tahay ma aragtay sidii wanaagsana ma aragtay koobka guuleysateen maanta aan ugu guuleysateen Bristol ma aragtay koob insha Allah ku nigu qaban doona ay xaflad fiican meesha tan ugu soo qayb qalaysiin mid ka kale maxaa celinaa wiilashii walaalihii Soomaaliyeed ee Bristol igala imaaday dhamaantiin oo mahadsan tihiin in walba oo naga guuleystay maanta insha Allah markii kala ma aragtay maxaa wax qabadkeena oo soo meel dhigi doona maxaan igala wada salaam gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Bristol mudane Keedow kulligiina xawada xafladda uu ka soo qayb gali waay laakiin wani salaamayaas waxaan leeyahay sidaan ka sii wada ma aragtay sportiska heer sarasi gaar insha Allah sidoo kale intaanan ka bixin magaalada Bristol waxaan rabaa inaa ila soo dhaweysiin nin asagana active ah magaalada Bristolna mar walba u taagan horumarkeeda Maxamed Xasan say no more السلام عليكم ودي السلام أغيرت دمان سودنتين أنا أكو هذا مقع بعض سبورتك في بريستول ودي السلام دمان قال هان وحن congratulation عليها كين كروس أو ما أركتي لورجر كوب يقعد سويدن واسكو أرجني وحنا ملينا هل كان الله بجرا واسكو أرجنا وملينا كوب يقعدين حرش كانوا هاي وحن كلهم هل كان السلام يا gudoomiyaha jaaliyadda UK iyo gudoomiyaha jaaliyadda haweenka walaashay qaali oo ma aragtay markasta dardar geliya isboortiga kaalin ka qaata iyo Mariya Cabdi salaamiya iyo macallinkeyga Mahataako thank you markaan waxaan rabaa inaan mikrofoonka igula soo dhaweysiin Lajan Zakariya Ahmed Balele السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رالي هذا فوسكو يقول عسوبيا ما كان سيد اللوقت به وبرنا لكن هذه لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كفر حسنا عذر دار زايد عن صوت داهي رالي هلا نقضه قدومي أوكر وجوه أمرنا على جرى على هذا وما سنتين قال كان كسوق يقولي كوب كريجنا داود ما عن كوب ير أنت أنا لقوم بلعبين جنرال داود وعايز تجي أمرنا هرسدنا هريالي هيستا أحمد عدي لاير طلبات قطبات مكوسي ديران دادا جعلنا قطبات لوسي ديرادو دادك إيجام مدن هلا سيو قطبات أنا مليه قطبات حق ولا هوري ولا قدام بي أمر كي يكسو جابجاينا قطبات دير مرة ودادك قطبات مجعله عدي لكن عن ربوينا نسي نقطة مستقبل كواح وقطبات نسي ديرنا سي عن ليراني كان ونين وديارسين وما سنتين عن زكريا هذا سين هاي مركان وحا إلى سودويسين قدوميه كوجولستي كوب كان هران كوجولستي كوب كي رمضان كا كوب كي جاليد مقالوين كا UK قلبتنا نقضي جامبيون كي كوب كجنرال داود عبد القادر قشو كسودو شليبيا شبليها شليبيا شبليها
السلام عليكم ورحمة الله waxaan marka hore salaamayaa legends-ka meeshaan soo fadhiistay caawa ee dhiirigelinta ciyaartooyda u yimid waa mahadsantihiin dadweynaha sharafta leh waa mahadsan yihiin ayagana magacan waan iska wadanaa laakiin nimankii soo dadaalay meeshaasay fadhiyaan New Cross FC la yiraahdaa sanadkii hore waxay qaadeen 4 koob sanadkaana waxay ku bilaabeen koob kale marka waa mahadsan yihiin war badan ma gelaayo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan bulshada ka soo qayb gashay kulligiin waa mahadsantihiin macallin buurina xagga fadhiya legendkeena annaga reer New Cross waa kaasa waaye assalaamu calaykum waraxmatullah soo aad u mahadsan yahay markaan waxaan rabaa inaan mikrofoonka ku soo dhaweeyo marti culus bahda kubadda kolegana ka mida dalka Sweden magaalada Stockholm nooga imaaday Cabdicasiis Low ku soo dhawow adiga awga aanu mahadinayaa maamulka koobkan mudane mahad iyo dacar iyo dhammaan odayaashii abaabuli koobkan qiimaha leh farxad weyn ay tahay inaan ka soo qayb galo rag ugu cursa jooga bahda sportiga jooga kubadda kolayga anuu ku hadlay magaca bahda kubadda kolayga ee Sweden inaan ka soo qayb ciyaarahan waa markii labaad aan ka soo qayb galayo waxaa mahad leh mahad iyo dacar ugu casumo markii labaad ugu casumo taariikhda inta badan jaandada waa laga sheekeeyey marka kulli hadal ku dheeraamayo martida iyo dhammaan waa salaamantii dhammaantiin markaan waxaan rabaa mikrofoonka inaan ku soo dhaweeyo Soomaalida markay rabaan inay taariikh ama wax baaraan waxaa lagu qoraa Google-ha wixii la rabo markay Google live ah oo isboortiga Soomaaliyeed waxaan nasiib u yeelan inuu nala degan yahay South London macallin buuran ku soo dhawow السلام عليكم horta waxa weeye xafladdan caawa oo koob jeneraal daawud horta khayr allah ka dhigo jananka wixii laga sheegi lahaa waa la sheegay wixii laga sheegi lahaa generaalka waa la sheegay meeshaan wax kalaa laga tegey waxaan rabaa inaan sheego london 4 meel ay u qaybsan tahay dadka waa isqaybiyaan annaga waxaan degannahay south east iyo south west si kastay dhacdo westigaana xukunto sababta wax kale ma aha ilbaxdii magaalada xagga degan marka dhib ma laha aad waxaan ugu faraxsanahay saaxiibkay marshaala ila joogo oo muddo aan arkin 30 ka badan aad iyo aad u faraxsanahay waxaan leeyahay oo kale mid kale aan ku daraa Soomaaliya waa isjeceshahay dadka dhahay isma jeclo dhibay leeyihiin laakiin waa jirtaa jananka iyo koobka iyo intaan dhalinyaraha isku timid dadaa ka shaqeeyay inay isku keenaan khayr allaha siiyo way dadaaleen raggii ka sii qaadi lahay booskoodana waa joogaan waa sugaynaa inay qabtaan ilaahay dowraalle ka dhigo waxaan leeyahay guulaysta meel khayr qaba gaara assalaamu calaykum waraxmatullahi macallin buurana aad u mahadsan yahay waxaan soo gaarnay khudbooyinka ugu dambeeyey markaan waxaa ila soo dhawaysiin guddoomiyihii qabanqaabada tartanka koobka jeneraal daa'uud mudane qoor cadde ku soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتي دمانتين دمان كوحا كسوغيب قلي وما سيهين كوبا دبدا نوغي يمد كوبا قبلة نوغي يمد مرت شرفتا قف كستا وماشان كسوغيب قلي وما سنتين وحانو هم بلاينا يا كوحدا كوب كوكو قوليستي نيو كروس هم بلاي ايان لاي هاي وحان كلو هم بلاينا يا دمان كوحا كسوغيب قلي كليا koobku waxa loo keenay in uu isku arko macnaha kooxda aan qaadin macnaha ma guul dareysan waxa loogu talagalay isdhexgalka bulshada in isku wada arko la sheekaysto la salaamo oo maasintii dhammaan dadka soo qayb galay
warkayga waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo marka waa mahadsantihi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markaan waxaa ila soo dhawaysiin guddoomiyaha jaaliyadda south london cabdulaahi carab oo ah nin u taagan dhallinyarada isboortiga iyo dhan walba cabdulaahi ku soo dhawo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عادي عادي أو فرح سنة هاي أنا وكوها الله مقع صوت ويستيق لندن حفلتها نروح بالبدن أو كسوق بقشين waxaan rabaa inaan u mahad celiyo marti sharafta caawa ka soo qayb gashay xafladan oo ah bahdii sportiska iyo martida sharafta kale caawa halkan wada joogto anigoo ku hadlaya magaca South West waxaan aad ugu faraxsanahay inaan qabanno sanadkii saddexaad koobkan General Daoud ragga dhinaca iga taagana waa dadkii soo qaban qaabiyay dacar ugu horeeyo iyo saaxiibkay mahad iyo dhalinyaro badan halkan joogto dhamaantiin aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rabaa halkan inaan ugu faa'iideysto kooxdii koobka qaaday New Cross aad iyo aad u mahadsan yihiin waa ciyaartooy ku dayasho leh koobkan General Daoud wuxuu noqon doonaa insha Allah tacaala South West-ga mid sanad kasta laga dhigo haddii Ilaahay yiraahdo sanadaha damban waxaan rajaynayaa inay anaga qaadno haddii Ilaahay hadaa South West nahay aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan gudageli doonaa wax yar kadib abaalmarinadii laakiin waxaan nooga dambeyn doono ilaa 2 khudbadood waxaa sidoo kale nala joogto fanaanad qaali ah insha Allah tacaala waana sugi doonaa ayaan Tramos marka khudbooyinkii ugu dambeeyay ayaan ku jirnaa marka waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo markaan macallimiinta oo nooga imaada dalka Sweden Sidi Ali عمر سيدي جابو كسو دو مقع فنانة أو أيان ترمسو مركا كل تاسان سحيل هاي وأنا ما سنتين سيدي كسو دو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان هلكا كسلامة يا مرت شرفت نقصو عزونتي كسو قيب قلكا عيارها كوبكا جنرال داود waxaan caawa aan nasiib u yeeshay in aan hortooda ka qudbeeyo legend oo aan fiirsan jiray oo aan kula kulmay tartankan insha Allah tacaala waxaan kaloo oon halkan ka salaamayaa martisharafta maamulkii ka soo qayb galay oo soo qaban qaabiyey ciyaaraha wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciyaaryahan weyn nin saciim ah walaalkeen faaqid wuxuu ka cudur daartay inuu hadlo waxaan rabnaa bahda isboortiga inaan u sheegno faaqid mar walba wuxuu u taagan yahay bahda isboortiga kuwooda dhiban ee magaalada muqdisho marka ramadaanka insha Allah tacaala cid alla cidii rabto bahdaas isboortiga inay wax ku sadaqaysato faaqid ha lala xiriiro sidoo kale waxaan rabnaa inaan si qaas ah ugu mahad celino abwaanadeena qaaliga ah abwaanad caasho abwaanad koronto waa mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina iyo maamooyinka sharafta leh markaan waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo cabdiqaadir muxudiin xaaji faarax oo ku magac dheer dacar asalaamu calaykum halkan waxaan uga mahad celinayaa dhammaan dadkii soo abaabulay iyo dadkii nagala soo qaygalay haba noqoto ciyaartooydii hore iyo kuwa maanta joog aad iyo aadaan ugu mahad celinaa siduu mahad sheegay bahda kubadda kolayga ayadana aad iyo aadaan ugu mahad celinaa oo caawa halkan noogu yimid waxaan kaloo jeclaa lahay inaan halkan ka sheega maanta nin walaalkii iga weyn oo Sweden noogu yimidaa jiro aan la sheegin calasow FIFA Sigaale waxaa kaloo halkan ku sugan 2 fanaan oo bulshada Soomaaliyeed ixtiraam iyo mudnaan ka mudan ayaan Tromso iyo deeqdheeg iyo habaryarta yaani heege ayakana aad iyo aad u mahadsan yihiin waqtigooda qaaliga ay noo soo hureen waxaan kaloo halkan ugu ayadana maanta halkan nala joogo abwaan koronto iyo caasho macallin oo aad taqaaniin ayadana abwaanada waxaan kaloo halkan nala joogto caawa martin noogu ah Safiya Faarax Bande oo ah life coach ama dhiirigeliye xagga waxbarashada amaba yani sida oo waxbarashada dhalinyarada ee dadka waaweyn oo ay tahay ba ahaatee
ayadana halkaan inala joogtaa macalin safiyo waxaan leenahay thank you very much waxaa kaloo halkaan caawa jooga sidii markii labaad iyo saddexaad la sheegaayo daahir xasan xuseen wagad xulka qaranka degmada hodan xaafadda siigaal waa walaalkeen waxaan leenahay ku soo dhawow london waa nin xishood badan waa nin culuma laakiin waxaan leenahay isboortiga weligiis waa isboorti daahir welcome to london soo dhawow walaalkii adeerkay weli waa si aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan jeclaan lahay haddana inaan ku soo dhoweeyo stageka horta halmaama hadalku ma jiro waxaa jooga professor tuuriyare waa nin asagoo konton jira waddankan shahaado jaamacadeed ka qaatay yacni 20 jiraan iskool aaday konton jiro waddankan iskool ku aaday shahaado digriya ayuu qaatay adeerkay aad iyo aad u mahadsan tahay waxaa kaloo jooga macallinkiisa injineer maalin walaal qaaliyaa tahay haddana waxaa soo galaan ilii sheegay macallin lolow duqa xaafadda koronele gurey lolow waa kaasaa koroneelkiina waa joogaa marka waxaan dhihi lahaa hadda inaan ku soo dhoweeyo siday kelmada noo tiraahdo safiya faarax bande life coaching macallimad safiya salaam السلام عليكم. وعليكم السلام. ما إذا مخلولي السلام عليكم. أوكي. وما سنتين دمانتين كل جين إنكستو إذا قونين أنسي كذي سكوي ماضي أدبا وما سنتين ولا عليه قدمان مجيء وصفية فرح باندي وحلاقيها وإن الفيسبوك وأركتين always وحنكها الله mindset محاوجو باهنتين نفس الدين إنه لشين مسكح هذا وحول بابا. So now waxaan rabaa inaan ka hadlo wax yar ku saabsan self discipline and specifically anoo la hadlayo walaalahii dhiirigelinayo oo kubadda markaa ciyaaraysa waxaa u baahanta wax walba horta waxaa waaye mind okay mind markaa dhahay waxaa ka wadaa halkan haddaadan discipline ka noqon wax walba ma suurtageli karaan okay teamwork inuu maaragtay ay tahay wax muhiimadda number 1 saa ogtihiinna teamka markaa ciyaaraysaan haddii kulligiin mindset fiican idin haysan in teamkaas uusan reynaynin and one mindsetna waxay korisaa 10 mindset wax walbana waxay ka timaadaa maskaxda haddii nafsadaada aad maaragtay discipline aadan ku samayn karin especially cuntada cuntid maxaa la yidhaahdaa akhlaaqda wax walba maskaxda koriya haddii aad ilaalinayn waxa ogaataa teamkaaga inuu sarreyn karin teamka reentiisu waxay number 1 tahay self discipline saana ogtihiin self discipline waa number 1 life-ka oo dhan marka anigoo idinku soo gabagabeynayo teamka wax kasta oo aad samaynaysid waxa ogaataa why are you doing marka hore nafsadaada weydii sababta aad u samaynaysid iyo teamkaaga goalkiisa aad rabtid inaad gaartaan waxaan gudageli doonaa magaalada Bristol markaan waxaan rabaa inaan u yeero wakiil u qaadi doono gudoomiyaha jaaliyadda Bristol Axmed Xasan Geedo waxaana noo gudoonsiin doona macallin John markaan shahaadadan waxaan u wici doonaa kooxda Bristol Star waxaanu gudoonsiin doonto macallimad Safiyo sidoo kale wili waxaan ku jirnaa magaalada Bristol markaan waxaan rabaa inaa ila soo dhageysiin Maxamed Xasan say no more waxaana noo gudoonsiin doona Siidi Cali Cumar
shahaado sharaf aan ugu talagalnay walaasheen maryan maxamed cadow oo hoolkan cawada kaalin lixaad la waqtigeeda u hurtay shahaadadan waxaan ugu talagalnay inuu guddoonsiiyo marti qaasa cabdicasiis low naadiga SYL maxamed abuukar naadiga SYL waxaana noo guddoonsiin doona guddoomiye dacar haddana waxaa u yeeraa faysal maxamuud timcadde waxaana sii doono lejan cabdiyare waxaa u yeeraa haddana bristol brothers ibrahim cosoble waxaana sii doono maxamuud calasow from sweden calasow waxaana sii doono walaalkiis ka weyn isku xaafadka yimideen legend of the legend axmed nuur maxamed xaashi cilmi sayga rooshka halkaas waa ku jira Yeah.
waxaan la bixi doonaa koobkii ay ku guulaysteen kooxda New Cross anigoo ku faraxsan walaalkay igu weyn inuu macaaw halkan joogo oo koobkana bixi doono waa laacib wagag waa xulka qaranka waa degmada Hodan waa Siigaale Daahir Xasan Xuseen Marshale أو كابتن نيوكاس عم ياخذ صدق احمد كر